وإن سلام جايز موقال كان ما جواب موقال كان واتلو عن سينايو جبر كستا أو لقبه مروءة والله تلاذا جبر عن سينايو واتلاذا وسين لها ولا الكير لا شيء إسكدا كو إسكدا جايين كو قبيل كيهين أو ضحايا أضلوا جو قبا كسر نيكي دركو جود جن حرام والله وبالله نك إسكدا جاي قبيل إنه جو دفاع عايو جفتي تيك توك لقى سينايو شلماتكو عشان وايو ولا شيء لا قلتي إسقى ولا شيء لا قلتي والله موسى كل طلين لهن تيك توك إنه كني كيس عياذ الله قبه كموسى يلي لهن متكلم عن كور راعيه قبل عن هذا يقبلها لم يتكعه واجب باي يسارن وولا له قبل أنا السنجل هديت هاي نلاش شيء السنجل وطه لكنسا ولا الغالي هدي المروت هاي أولو قبه وعطسي ولا النكاح احترام نفط هذا احترام أبها احترام أنت عن كشة كانوا يدمر خلاص صوته نك كو قبيل كاحتا احترام وهاي مال شحك مع بكرة هدي أدي قالوا قبوا أد إسقاوين يسد رجعنا أدري بتدنا أكلك عشرة وفتدك لقاد قادين ببلغنا أديك إسكندي والله أبها إي ولالك إي كم كو قبيل كأه وجه إلهي لسن مال شحك عبي كريم أنا مش شيء نرى تيك توك إنه جفت كهرب إيه أدي كسر كلها والله وبالله وطالله ولا شيء ما أنت كسر عمده لهين نرى إنه تيك توك جفت كهرب كاس شلمات كفير سنة يا إيه ولا شيء وحصنوا أقلين أديك كو أقلانا يا أقوله أضلوا قبنيك فسح أطهي أنا كو دام أرنت كو شيء جاي هبا كو دبت رنت هبا كو دبته أنا كو دام أو والله رنت كو شيء جاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكين سيكي وذ الله اسكو نقد وناكسن أولي بحيصله waxaan ku rajeynayaa adigoo caafimaad qaba inaad soo laabatay waliba maalintaadu ay aad u fiican tahay waayahay waxa ogtiin in aan ku jiro barnaamij la yiraahdo hore aan u sameyn jiray inaan soo celiyay try not to laugh hadaba waayahay try not to laugh intaan ku guda jiray waxa kale oo ka soo dhaxbacay fikrad ah waa lagu qabaa abay ha is iloobin marka maanta waxaan sameynayaa waa lagu qabaa ha is iloobin داوشوا عن وكذا أنت الرياكشن جودة قلين شلون واحد يسوي قريسين سيكي ونجد فيديو إذا قار لا يكون صار جايز سكرين ريكوردينج على موبايل كي يكون سبعينية لما آمن كرو مرة كي قارو حلاقي يا با إنه كوش خيوايو إيه وتشكر هاي no كشاكيه إذا كان نديبي كشاكيه مروه صار اسكو صلاحي اونلي مي ما فيديو حيو بانت وحقبوتشيو بيرك ودشيو بانت فيديوغنا اونلي مي ما نكيد اونلي مي ugu yandhin nafteedana ugu yandhin public ay keentay taasoo macnaheedu tahay aniga ka hadli kara adiga ka hadli kara ana comment ka bixin kara qof kastana comment ka bixin kara ku soo no kaaga sii daranka inuu jiriis ma hadii aan dhii lahayn 19 jir waaye gurka ku cusub waa waalanoosa hayu baant wax qaboojiyo beerka u dajiyo baant hadii aan dhii lahayn cunug yar oo arooska ku cusub waaye 19 years old hadii ahaan lahayd waxay ahaan lahayd waa qof weyn oo carruur haysata hayu baant wax qaboojiyo beerka u dajiyo baant حيو بانت وحقبوتشيو بيرك ودشيو بانت كشاكيه يا إسقاري كان صليلو واي فيديو إذا قفتان ببليق هو صليلو واي كان إيه وتشكر هاي no لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم qoftaan hadda maqalkeeda jiifkay joogtaa surwaalka balaastiga iyo dharka wada balaastiga soo xiratay fiidiyogaana diyaar ku ah in public ahaan uu dadka u gaaro already uu soo gaarsiisay no hayu baant wax qaboojiyo beerka u dajiyo baant no شكرا والله قبا هرتيننا سوي اسكو سيها
Oh, no, 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 no. maxay u baahanta wax qaboojiyo beerka u dejiya u baahanta my life noloshayda waa markii ugu horeysay intaa social media waa soo arkayay gabar le waa la qabaa oo ninkii iyada qabay ka duubayo kilibyo caynkan oo kala in my entire life gabadha gurigaaga markii laga soo wato oo nin xareysto gabadhaas waxay qaadaa 5 qof sharaftooda number 1 aabeed sharaftiisa number 2 walaalaha ayaga la dhashay sharaftooda number 3 ehelkeeda number 4 dadka iyada ku qabiilka ah number 5 jinsi ahaan dadka isxigaan hadda gabadhan runtii aan shalay u sheegay ee iyada anfacaysay qodobka sanaadan ka soo galay macna aabaheed ma ahayn walaalkeed saxa oo la dhashay ma ahayn ehelkeeda qof kamida ma ahayn qabiilkeeda qof kamida ma ahayn Allahu musta'an qofka shanaad qodobka shanaad oo ah jinsi ahaan kor Soomaali ayun baan meesha ku soo galay aan u sheegay wallahi markii kilibkaas ay gabadhaas ugu run sheegayna daacad ayay iga ahayd ulajeedka ugu weyn aan halkan ka sheegay wuxuu yahay gabaray hadii lagu qabo anigoo kinsiikay ah haddii aan ku arko muuqaal adiga gacantaada isaga duubtay oo adiga TikTok iskentay waan ka falcelinayaa waayo adiga iskeenay qofna kuma soo qasbin hablaha kale aniga ma haysto laakiin gabdhaha marwooyinka ah haddii aad naftiina ixtiraami weysiin iyo nafta ninka ku qabo iyo nafta ku kula dhashay iyo nafta ka ku qabiilka ah iyo kan jinsi kula ah Soomaali aniga haddii muuqaalkaaga iska soo waashay oo gacantaada public ku soo dhigtay aan arko wax kale kugu sameey maayo ku cayn maayo waan ka run sheegayaa oo kaliya anigu guur waan soo maray baaba ninka ragana sidiisa marwada uu qabo inta ay la joogto markii ay meel publiga imaanayso siday u dhaqanto waa sharaftiisa siday u dhaqanto waa isaga sharaftiisa haddii ay noqoto marwo xishoota dadka markay ku dhex jirtana laga dareemo in la qabo iyaar way aboo meel kasto ka qanciyay warmaan wadeena ukaadi xagee u cararaysaa fariintan qaado haddii aad tahay marwo fadlan naftaada iyo nafta ninkaaga iyo anagoo walaalaha ahba na ixtiraam markii aad imaanaysid public intaasan tala ahaan kuu siinayaa haddii aad ixtiraami weysid reactionkayga dhexdiisa aa lagugu ixtiraam